السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا كسو دو قنال كينا قصو برودكشن اوفيشال. هدي اي تاي مركي ugu horeysay fadlan channelka subscribe saar furo gambaleelka si ay kusoo gaadhaan muuqaalada ugu horeeya aan doorno. qisada tan waa mid aad u cajiiba. qisadan waxay dhex martay nin faqiir ah ama nin taajir ah. waxaa meel ku wada noolaan jiray baa la sheegaa inay wada jireen nin faqiir ah iyo nin taajir ah. kan faqiirka ahi wuxuu ahaa shaqaale aan lacag badan qaadanin, balse wajigiisa iyo jaahiisa ay ka muuqatay farxad iyo qosol aad markaad eegto ula yaabayso. kan taajirka ahina wuxuu ahaa mid cadhaysan markasta. maalin maalmaha ka mid ah wuxuu bilaabay kan taajirka ahi inuu ninka faqiirka ahi aad ugu fiirsado. dabadeeto maalin buu u yeedhay, wuxuu ku yidhi nin saaxiib muddaan ku aqaanay, darisna waynu ahayn. marka loo eego hantideeda iyo shaqadaada, aniga ka hanti badan, ka shaqo fiican, ka lacag badan, haddana sidaas ay tahay adiga ayaa iga farxad badan. maxay tahay sababtu? ma ii sheegi kartaa? wuxuu ku yidhi farxadda iyo hantidu ma aha laba isku xidhan. wuxuu yidhi maxaa dhacay? wuxuu yidhi anigu waxaan ahay qof islaama, diinteyda ayaa igu qancisay, iimaan ayaa igu jira, inta yar ee aan qaato ayaan ku kalsoon badanahay. kadibna wuxuu yidhi ma diintaada ayaa farxaddan sabab u ah? kadibna wuxuu ku yidhi haa, diinteyda ayaa farxaddaas kale. waa cajiib. uu yaabay, wuxuu ku yidhi diintaada maxaad iga bari karaysaa? wuxuu ku yidhi haddii aad u baahan tahay inaad faraxsanaato, wajigaaga dhoola cadays ka muuqato markasta, kusoo bir diinteyda. sidiina ayuu ku islaamay. tani waa qiso laga faa'iidaysanayo in maalka iyo hantidu aysan farxadda sabab u ahayn, laakiin caqiidada iyo diintu ay farxadda sabab u yihiin. waa mahadsantihiin. soo dhawaada.